waxa waaye xoolo ay keeneen beesha murugsade oo aan doonayno inaan ku wareejino gudoomiyaha degmada Geedqorow oo aan rabno inuu hadii Ilaahay ku idmayo ay ka qayb qaataan xoolahaasu sooriyeynta hadii Ilaahay ku idmo martida timiday dawlad goboleedka aan rabno inuu ku wareejiyo u kaashado sooriyeyntaas ayaa taagan xoolahaas waxay leeyihiin ay keeneen beesha murugsade 20 neef oo geel ah 3 baabuur oo raashin ah 25 neef oo ariya waa taagayiin intaas taagan waxaan rabnaa gudoomiyuhu ha ku soo dhawaado waa ku mahadsan yahay. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Salaan kadib waxa sharaf inoo ah in maanta aan halkaan ku gudoomnay deeqdaas oo aan kaga qayb galayno munaasabadii wafuudii noo timaaday shirka halkaan lagu qabanayo. waxaan annaga xukuumadda ku hadlayno waxaan aad uga mahadnaqaynaa isxilqaamka iyo isgarabtaaga dawladda u suubiseen xildhibaano odayaasha dhaqanka iyo golaha dham marka aad iyo aad u mahadsantihiin. waxaan runtii si qiiro leh aan maaragtay ugu mahad celinaynaa una soo dhaweynaynaa beesha kale la hawiye ama murugsade oo maanta deeqdan ballaaran oo isugu jirta geela iyo ariga iyo raashinka nagu wareejiday annagoo ka wakiila galmudug ama martigeliyaalka caasimadda galmudug qaybaha ka jooga. aniga iyo wasiirku waxaan ka midnahay halkan Cabdisaaq guddiga loo xil saaray oo madaxweynuhu uu xil saaray xoolaha qibloodkooda iyo martida maaragtay martiqaadka guddiga loo saaray aan ka midnahay. marka hore horta waa gudoonay deeqdaas ballaaran waa ka mahad celinaynaa waa ka duceynaynaa in xariyihii laga soo bixiyay Ilaahay wax ka qayr badan oo galiyo bedelkeeda Ilaahay oo barakeeyo maalkan iyo maalka kale cidii u harayba. waxaan rabaa halkan inaan ka cadeeyo runtii geelani waa geelii shanaad waan maaragtay qibloonayno qabiilkii shanaad oo geelka aan ka gudoomaynaa tihiin oo reer galmudug ah. markii dhan kale laga fiiriyana waxaa tiin qabiilka labaad oo xoolaha ugu badan bixiyay beesha cayraha lambar 1 ahayd murugsada lambar 2 maanta soo galay adiga geelaad keenteen 20 geela ari tira badan baabuur ka buux waxa ku soo darteen haddana raashin xataa keenteen maalinba waxba soo kordhay waxa soo dhan waxay daliil u yihiin dadka reer galmudug siday maaragtay qiirada ugu qabaan nabadda siday u jecel yihiin midowga Soomaaliya iyo maaragtay khilaafka in la xalliyo siday ugu mamman yihiin ama se maaragtay runtii ay dhaqanka soo jilayga karamka ku saabsan ay u leeyihiin in dadka martigeliyaan.